iyadoo lagu jiro maalintii shanaad ee u socdo qaadashada kaarka codbixinta ayaa gebi ahaanba waxa tuuran kaadhadhkii loogu talagalay bulshada inay ku codayso goobaha aanu booqanay saaka. goobaha laga qaadanayo kaadhadhka codbixinta ee magaalada Burco ayaan si xawliya uga socon, taasoo ay sababtay gaabis badan iyo dadweynihii oo aan ka soo xaadirin goobaha lagu qaadanayo kaarka. howlwadeennada ku sugan goobaha ee komishanku u xil saaray in ay bixiyaan kaadhadhka codaynta ayaan iyagu wax shaqo ah goobtaasi ka hayn, maadaama shacabkii fooda soo gelin waayeen goobahaasi. mar aanu mikrofoonka dhex qaadnay bulshada ayaa waxay cabasho ka muujiyeen, islamarkaana ay ugu baaqeen komishanka in ay xoojiyaan dardargeliyaan bulshada si ay u qaataan kaarka codbixinta, shacabkana ugu baaqeen inay tagaan goobahaasi oo ay kaarka qaataan. dadka ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba jooga waxaan leeyahay kaararkii way buuxaan. xagga komishanka doorashooyinka waxaad moodaa inay xagga wacyigelinta ka gaabiyeen. dad fara badan baan kaararkii qaadan ilaa hadda way toban yihiin. gobolka Togdheer waxaad moodaa 180,000 oo cod baa berigii hore iska diiwaangeliyay, hase ahaatee maanta waxaa laga yaabaa ilaa 100,000 oo cod in lala noqdo codadkooda haddaysan ka daba tegin oo aysan degdeg u qaadan kaarka codaynta muwaadinka. waxaan kaloo halkan baaqi u soo jeedinayaa dadka ku howlan dhammaan deegaanka ku howlan inay dadkooda baraarujiyaan, inay arrinka xoogga saaraan, degdegna dadka loo gaarsiiyo goobaha codaynta. goobaha codaynta way maran yihiin, wax dadoo joogaa ma jiraan. dadkii diiwaangelinta halkan loo sallaxay waxaan ogeysiinayaa komisharka 30% ayaa galay, 70% may gelin. muddadana waa yarayseen oo waxaa ka dhigteen 7 casho. marka waxaan anigu afka cuqaasha gobolka Togdheer ku hadlaaya waxaan idinka codsanaynaa in muddada la kordhiyo, baabuurtana dhawaaqeeda waxba laga maqli maayo. waa in baabuurta komisharku kireystay ee dadka diiwaangelinta u sheegaysa waa in ay codka ummadda gaadhsiiyaan. gaadhi ordaayo oo heesuun ay ka furan tahay baanu suuqyada ku arkaynaa cuqaasha haddaanu nahay. markaan waxaanu leenahay ummadda Soomaaliland iyo gobolka Togdheer ummadda ku nool ee Soomaaliland muwaadiniinta waxaan u sheegayaa aanu ka codsanaynaa inay diiwaangelinta kaadhadhka qaataan. barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaadeen. dadku inay kaadhka qaataan oo goobihii kaadh qaadashadu aad iyo aad bay u liidataa inay dadku joogaan. oo waxaa loo baahan yahay qaadashada kaadhkani wuxuu ku saabsan yahay doorashadii madaxtinimada, tii baarlamaanka iyo tii golaha deegaanka. kuma xidhno oo qura in madaxweynaha dhawaan la dooran doono lagu dooranayo, laakiin waxay saameyn ku leedahay saddexda doorasho istaba yaal. dadku sidaa uga fikiraan oo ha qaataan. komishanka doorashooyinka hal fariinun baan iyaga halkan u marinayaa, oo waxaynu u baahannahay maxay ahayd goobaha laga qaadanayo kaadh bedelka mid walba xuruufta laga helayo si babliga inay soo baahiyaan. si kastaba ha ahaatee waxaa gaabis badan laga dareemayaa guud ahaanba kaadh qaadashada codbixinta, waxaana xusid mudan in haddii sidan ay ku sii socoto codad badan laga waayi doono gobolka Togdheer. maxamed xasan diiriye maxamed jookar, telefishinka caalamiga Ariel TV, Burco.